war degdeg oo hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu ka harayo tartanka doorashada ee dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay inay dani ugu jirto xisbigiisa iyo dowladnimada dalkaasi Mareykanka inuu xilka ka dego oo uu xoogga saaro kaliya gudashada waajibaadka madaxweynenimo inta ka hartay muddaxileedkiisa. Waxa uu dhahay, waxaa sharaf ii ahayd in noloshayda in aan noqdo madaxweynaha Mareykanka. Beddelka suurtagalka ah ee xisbiga dimuqraadiga ee uu soo sharaxi karo ayuu sii tilmaamay, isagoo sheegay Kamala Harris inay noqon karto madaxweynaha dalka Mareykanka, isagoo xisbigiisa ka codsaday inay siiyaan taageerada iyo waliba taageerayaashiisa. Waxa kale oo uu sheegay gabadhii ama xaaskii hore ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ee Michelle Obama, oo uu dhahay iyadana waxaa loo baahan yahay in ay tartanka ay ka qayb gali karto. Ama sidoo kale waxa uu carbaabay gudoomiyaha gobolka California. Laakiin Biden ayaa wuxuu soo jeediyay in taageerayaashiisa iyo xisbiga dimuqraadiguba inay Kamala Harris ay u ogolaadaan inay noqoto musharaxa xilka madaxweynaha Mareykanka, haddii la doortana ay sidaas ku noqoto madaxweynaha dalka Mareykanka ah. Markii uu si rasmi ah u sheegay in Biden uu ka haray doorashada, waxaa si degdeg ah markiiba warbaahinta ula hadlay Trump. Waxa uu sheegay in doorashada uu kaga adkaan doono Kamala Harris ayna uga fududahay tartankii uu la geli lahaa Biden. Waxa uu yidhi, waan ka guuleystay oo dimuqraadiga sidaas ayaan uga adkaaday. Wuxuuna intaasi uu ku daray in Biden uu ahaa madaxweynihii ugu xumaa ee abid soo mara dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa waxyaabaha uu isu casilay waxaa ka mid ah isagoo oo noqday nin waayeel ah oo ay wax kala garashadiisa ay hoos u dhacday, taas oo muddooyinkii ugu dambeeyay dad badani ay ku dhaliilayeen. Waxaana xisbigiisu uu cadaadis ku saaray inuu ka baxo tartanka doorashada si ay u soo sharaxaan musharax cusub oo la tartami kara musharaxa u sharaxan xisbiga jamhuuriga ee Donald J. Trump oo hore u soo noqday madaxweynihii ka horeeyay Joe Biden ee dalka Mareykanka. Fadlan daawade, haddii aad nagu cusub tahay, ku soo biir barahayaga bulshada oo channelka subscribe noo saar. Haddii aad horey noola joogtayna barnaamijka noo like garee oo noo share garee. Mahadsanid.